مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وأنا إذن سلام أدونكم من والبات كجوفتان إن شاء الله waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan. asxaabta igu cusub aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa, gacmo furan qalbi furan kusoo dhawaada. channelkiina waa insha Allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad ila socotaan. videogeeni maanta inta aanan guda galin codsi yar ayaan wataa. codsigaasi waxaa waaye inaad ii soo booqataan abaayada magaceeda halkaan kusoo qoray ayna cadeey. إن شاء الله channel كذا يجلا يسوى بوقضة team Mona's home وبقرأ إن شاء الله فرير قريبة كذا وحياة بدن أياد كفاية ديسان أصحابته وحرجينا إن شاء الله إن يسوى بوقتنا بعيدا يسوى دوية ما شاء الله ديرجلين أي أباهنتهاي ديرجلين توحنقول أنا قدرنا أي قوة نول إن أن إسوى عاونه oo dhiirigelin aan ka helna ma sha Allah bulshadeena Soomaaliyeed aad iyo aad ayay inoo farxad gelinaysaa aad iyo aadna yani waan ugu farxeynaa marka insha Allah abaayo waa kana magaceedii halkan ayaan ku soo qoray waa channelkeeda linkigeedana insha Allah hoos ayaan idin soo dhigayaa linkigaas ku dhufta waxaan rajeynayaa asxaabta inaad ii soo dhaweysaan abaayo ina soo booqda insha Allah from Mona's home ayaan ka soconaa iidaha aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida quruxda badan leh oo ma sha Allah aad iiga dhageysateen iyo mar walba fiidiyodeeda aad daawataan iyo kommentiyadiina quruxda badan leh mar walba ma sha Allah dhiirigelin weyn ayay ii tahay aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa jasaakallah khair ayaan idin leeyahay abaayadana mar labaad iyo mar saddexaad ii soo dhaweeya insha Allah linkiga hoos ayaan soo dhigayaa asxaabteeda aad iyo aad ay u mahadsantihiin hadan insha Allah waxaan guda galeynaa oo bilaabaneynaa video blog yar oo maanta aan ugu talagalay in aan idin la wadaago insha Allah si daawada asxaabta aad iyo aadna waad u mahadsantihiin maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago suxuur aad u macaan oo aniga aan jeclahay in aan ku suxurto oo suxuur yani ma sha Allah protein fiican leh aad ku dhargeysid dhadhankeedana inaba aan caadi ahayn ma sha Allah marka suxuurteena waa kana adeegan ayuu ka kooban yahay maadaama hadda soosoon lagu jiro waxaan isticmaalay protein badan ayaan ku darayaa si yani aanan u dareemin gaajo sidaas darteeda protein badan ayaan ku darayaa caadiyan intaan protein kuma daro laakiin ma sha Allah tookadani protein badan fruit badan ayaan ku dari doonaa insha Allah asxaabta marka waa kan adeegeen intaan ayuu ka kooban yahay waxaan isticmaalayaa waa loos waxaan isticmaalayaa fruit qalalan waxaan isticmaalayaa looska shiidan saliid qumbo waxaan isticmaalayaa timir chia seed malab mashaari sabiib wixii fruit oo qalalan oo dhan insha Allah waan isticmaali doonaa iyo looska aad jeceshay kala duwan marka waxaan idin tusayaa qaabka aniga aan u samaysto aan isku dardaro suxuurtani ma sha Allah waxaan ku jeclahay waqti badan igama qaadanayso habeenkii saa ognahna dadkeena Yurub iyo Mareykan joogo waqti badan ba yani ma sha Allah ma haysano oo suxuurtii iyo afurkii waqti badan ba uma dhaxayso sidaas darteeda waxaan jeclahay inaan ku suxuurto wax yar oo fudud habeenkii saqdi dhaxna maadaama la soo kacayo wax badan inaan sameeyo marabi marka ma sha Allah si yogurt inaba caadi ma ahan marka hadda intaan ayaan ku shubtay qof walba qiyaastiisa waa kana halkaan waxaan ku soo shubay waa 5 qaando ilaa 6 qaando oo looska shiidan marka kastoo yar wuu adag yahay sakino ayaa waxaan ku soo qandiciyay microwave-ka ayaan ku soo qandiciyay marka sidaan ayuu ku noqonayaa dareeraha ayaa la rabaa ma sha Allah waxaan ku dari doonaa marka malabkana asiga waxa waaye 3 ilaa 4 qaando ayaan soo qiyaastay hadii malab aad rabin xitaa iska dhaafi kartaa laakiin ma sha Allah malabkana aad iyo aad ayuu u fiican yahay dhadhan ayuu u yeelaa wax sokor aan ku dareeno malahan intane waa 2 qaando waaweyn saliid qumbo ayaan isticmaalayaa ma sha Allah saliid qumbo iyadana faad yar ayaad ka helaysaa aad iyo aad ayay u fiican tahay yani qaleelka ma dhigayo granulada aan sameynayo marka intaan horta ayaan si fiican iskugu qasayaa si fiican markaan iskugu qaso kadib ayaan adeegeeni kalan ugu talagalay ayaan ku darsanaynaa hadda waxaan ku darsanayaa marka chia seed ayaan ku darsanayaa chia seedkan aad iyo aad ayuu u fiican yahay nafaqo badan uu leeyahay iyo fitamiino waxaan kaloo ku daranayaa marka sabiib ayaan ku darayaa ma sha Allah waxaan kaloo ku dari doonaa 4 loos oo kala duwan ayaan soo jijibiyay
mudile u qaato waan soo jijibiyey afartaas loosna waan ku daraa asiga waxaan kaloo ku dari doonaa pumpkin seed ayaa la dhahaa kan cagaarka aad arkaysaan waa bocorka oo mirihiisa la qalajiyey waxaa kaloo ku daray geed wallahi runtii magaciisa ma kasaayo laakiin caloosha asigana socodsiinayo intaasi ayaa maasha allah isku qasaya waxaan ku dhahay maasha allah suxuurtani aad ay u fududahay yoogar lay shubanaysaa dhac maxay ahayd granoolada ayaad ku cunaysaa waqti badanna wax ay kaa qaadanaysa malahan waa suxuur fudud oo inabaan caadi ahayn waxaan soo diyaarsanayaa markaa saxankan waaye ayaa foornada la gelinayaa saxankan ayaan foornada la gelinayaa marka saxanka ayaan ku shubaa halkan waxa igu jiro waa timir iyo biyo ayaan isku karkariyay timir iyo biyaha markaan isku karkariyo biyihii ay gursadeen sidan ayaa noqotay dhalo ayaan ku shubtay sida malmalaad camal ayaa loo isticmaali karaa maasha allah inaba caadi ma ahan wax yar ayaan dusha ka saari doonaa timir waaye cusbo ma aha sokor ma aanan ku darin sokor ayaa ka wada raali noqda cusbo ma ahan sokor ma aanan ku darin waa timir iyo biyo bis ayaan isla karkariyay markay karkartana waxay noqonaysaa sida malmalaad camal waa kana dusha ayaan kor ka saaraa dabka ayaan gelinayaa 200 iyo adiga 50 ayaan ku shidayaa 10 ilaa 15 daqiiqo ayay dabkii ugu jiraysaa maasha allah waa kana hadda waa soo bixiyay dabka wuu qaboobay wax yar ayuu banaanka yaalay wuu qaboobay waxaan ku dari doonaa waxa waaye marka blueberry oo qalalan ayaan ku darayaa blueberry-ga maasha allah inaba caadi ma nafaqo badan ayaa laga helaa kanna waxaan ku darayaa waa tufaax qalalan iyo canbe qalalan ayaan soo jarjaray ayaan dusha ugu dari doonaa intan ayaan si fiican iskugu qasaa 2 dhal ayaan soo diyaarsaday labadaas dhal ayaan ku shubanayaa marka uu si fiican ugu qaboobo kadib waxaan ku dhahay maasha allah suxuurtaada waa diyaar nafaqo protein leh wax walba leh marka asxaabta waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen videogan haddii aad ka hesheen fadlan asxaabtaada la wadaag subscribe like iyo comment intaba waa ii dhiirigelin intaba ha ii hilmaamin marka waa kana hadda suxuurteenisaan ayay noogu soo baxday yoogar oo maxay bilaa dhadhan ah ama yoogarka dhadhan kale kaad jecesha ayaad ku cunaysaa midka naturalka ayaa ka wadaa mise mid oo dhadhan ayaa jiro marka waa kana macaankiisa sokortiisa wixiisa dhan way kaa jikiman tahay inaba aan caadi ahayn waxaan rajeynayaa in aad tijaabisaan asxaabta insha allah biyo yar ayaan u baahanahay inaan sameysto biyahaasi marka wuxuu ka kooban yahay waa canab iyo liin iyo maxay ahayd nacnac waa ku dari doonaa insha allah dhaladaas biyaha ku jirna waan isticmaalayaa orange ayaa hadda sameynayaa maanta dhadhamo kala duwan ayuu leeyahay inaba caadi ma ahan marka dhalada hadda waxaan ku shubay baraf ayaan ku shubay waxaa kaloo ku shubay cambe asigana baraf waaye barafka ayaan geliyey barafkii xataa kama dhicin qabowgiisa ayaan rabaa liinta ayadana sidoo kaleeto ayadana way qabowdahay waa wada baraf waa soo jarjaray 2 liin ayaan isticmaalay hadda marka garaafada biyo ayaan ku shubayaa biyaha markaan ku shubo waxaan ku dari doonaa marka casiirka aad arkayseen casiir walbo aad rabtid ayaad isticmaali kartaa wax sokor aan ku darayo malahan casiirka asiga ayaaba macaan marka maasha allah marti markaad qabtid oo kala kaal iska arag ama dad badan markaad afurinaysid inaba caadi maahan qabow waxaan ku dhahay macaan iyo wuxuu isku darsaday caraf intaba canbaa ku jirto liina ku jirto nacnac ayaan ku dari doonaa maasha allah marka asxaabta hadda waa kana nacnac waan soo jarjaray waan ku dari doonaa dusha inaba caadi maahan ku dhahay biyahan haddii aad dhadhamisid laab qaboojiya u bixiya aniga aad iyo aad ayuu u macyahay aad iyo aadna qabow u yahay maasha allah marka hadda waxaan diyaarsanaynaa miiskii oo aan saari lahay ayaan diyaarsanaynaa insha allah asxaabta ila socda طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي
ما شاء الله markaad waa kana miskiin waa soo tirtiranay gacanta ayaan soo marsiyay waa nadiifiyay waxaan soo dhiganayaa marka dhalooyinkeedii ayaan soo dhiganayaa marka dhalooyinkan waxa igu jiro fruutiyaal kala duwan loosas kala duwan ayaa ugu jiro oo aan ugu talagalay wax yar oo faakahaysi ah markii la afuro kadib in la iska cuno waxaan rabaa sidaan hore idinku sheegay insha Allah dhanka caafimaadka in aan bishaan Ramadaan ma sha Allah xoog aan saarno oo aan isku dayno miisaan badan inaysan noqonin saas darteed marka macmacaanka waa iska ilaaliyaa oo fruutooyinkan iyo loosmanka iyo kuwan ayaan inta badan isticmaalaa ma sha Allah marka aad iyo aad ayay u macyihiin waxaan kaloo marka soo diyaarsanayaa koob ayaan soo dhiganayaa halkan koobka aan ugu talagalay in casiirka lagu cabo marka geedkan ayaa guriga ii yaalay oo rabaa koobka inaan saarto ma sha Allah koobka marka waa dabagidinayaa wasaqi waxaas inuu iga gala ma rabo marka sidaas darteeda ayaan u dabagidiyay koobka dhinacna waxaan rabaa marka inaan ka saaro garaafadii weyneyd oo casiirka laga shubanayay geeska ayaan rabaa inaan ka dhigo ما شاء الله أنا سيداني آدي يعجب سرونتي إنه بعادي ما أهل وحنقول له قروحنا ويقصوا بحساب ميسج كذا كبدأ أيام صارتي مركوا كان ما شاء الله أصحابته حرجيني فيديو جينات كهشان هديات كهشان فضلا ولا لها إيه المامن سبسكرايب لايك شير أصحابتي لنا إيه لو هذا الفيديو سيدان أيوة قصوا بحي وحرجيني إنات كفائي دي ستين آدي يوم هالسنتين كومنتي دي نقروح بضلة ومروا بعد إيسو قرطان يدير جلنتينا mar walba kama daalay waa mahadsantiin inaan idin dhaho insha Allah jazakallahu khayr ayaan idin leeyahay dhammaan adduunka meel walba aad ka joogtaan aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah ilaa video kale aan ku kulmayno khayr ayaan idin dhaafay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh